xog ururintan horta waxay xooga saaraysay way aysan 25 kaliya u soo baxday dadkii isdiiwaan geliyay maana fiirinaynin ma la qasbay mise lama soo qasbin daraasad qayb kama ahayn laakiin daraasad tan ka horeysay ama xog ururintan ka horeysay oo aan ku ogaanaynay dadku si oo arkaan isdiiwaan gelinta ayaa waxaan ku ogaanay dadkii noo jawaabay waxaa ka mid ahaa boqolkiiba 6 dad ah gaaraya oo noo sheegay in xoog lagu diiwaan geliyay ama si qasab ah ayuu jeed ka maraya la yiri isdiiwaan geliyo saa doorashada qayb ka noqotaan marka tan maana fiirinaynin maxaa la dhahaa ma la qasbay iyo la ma qasbin daraasadan xoog maana saarin su'aashaada kale ah ma la wadaagteen ah inta tabarteena waxaan la wadaagnay guddiga doorashada waxaan kaloo la wadaagnay maxaa la dhahaa dad daneeya inay doorashooyinka wax ka sheegaan bulshada reedkana hadda maanta ugu horeyso aan la wadaagay abaay su'aasheedu waxay ahayd malaynaa guddiyada ahsaabta anaga waxaan su'aal weydiinay 6 ka mid ah oo aan u soo qaadanay sambal ahaan 20kii xisbi ee ka qayb gashay doorashada marka laga reebo JSB waxa kala warsan Sinacad Karaama iyo xisbiyo kale marka JSB waxay noo sheegeen inay doorasho qabteen laakiin kuwa kale waxay noo sheegeen in gudoomiyaha loo siiyay privilege inuu liiska asagu u doorto marka taas aan ku saleynay inaan dhahno doorasho maysan qaban gudaha laakiin is detail JSB dhexdeeda xataa fitanka waa jir in qofka xildhibaanka laga dhigayo uu raali ka yahay ala gudoomiyaha ama golaha fulinta ama qof kale oo power ku dhexle xisbiga